dhab ahaan waxaad moodaysaa inay soo dhowaanayso sunnadii kala beddelidda oo allaah uu inagu beddelo kuwo uu jecel yahay iiguna jecel sababtoo ah waxaan noqonnay kuwo ku caasiya oo qaado waaya amarkiisii wax badan oo calaamadaya astaamo ah ayaa inoo soo muuqday si aan alle ugu laabanno laakiin taa inumaysan siyaadin inaan ku dhex jirno kibir iyo weliba kadabeen ah in badan oo ka mida dowladaha carabta waxaa la xiray masaajidii intaa ka horna musiibadu waxayba tahay in la xiray kacbadii arki maysid mid dawaafaya ama cimraysanaya meelaha qaarna aadaan iyo aqinba ka maqli maysid waxaa dhab ah in caabuqa faafaya uu musiibo yahay laakiin musiibada ka weyn waxay tahay in dadkii ay ka tagaan oo ay ka ordaan oo ay ka cararaan guryihii ilaahay iyo kacbadii sharafta badnayd oo markaasna aadan arkaynin wax tukanaya ama cimraysanaya ama dawaafaya allah baynu ka jeedsannay isaguna waa naga jeedsaday ha u ooyin kuwa ooyaa deganaantii marka la joogo masjidka iyo sidoo kale salaaddii barqada la tukan jiray ee salaatu duxaa iyo weliba ducadii aan la celin jirin ee hore laga aqbali jiray una dhexaysay aadaanka iyo aqinka ha u ooyin kuwa ooyaa salaaddii jamaacada lagu tukan jiray iyo tallaabo kastoo masjidka loo qaadayo oo laga helayay ajir aad u fara badan sidoo kale kuwa ooyaa ha u ooyaan khudbadii salaada jimcaha loo soo kalihi jiray oo markaana qofku khadiibka dhagaysto kana helo ajir aad u fara badan iyo dembi dhaaf iyo nimcooyin tirabeel ah waa fariin inooga timid allah subxaanahu wa tacaala oo carooday sidee baanu u caroonayn allah subxaanahu wa tacaala oo loogu caasinayo maalin weliba 10 faaxisho iyo dunuub kala jaad ah wuxuu yidhi ibnu khalduun haddaad aragto dadkoo badinaya hadalka lagu qoslo xilliga musiibooyinka ogow inuu asiibay faqri sidoo kalena ay yihiin qoom ay ku dhacday qaflad iyo halmaamsanaan is-addoonsi iyo dullaysi sida qof loo kaxaynayo geerida isagoo sarqaansan laakiin alle subxaanahu wa tacaala waa alle naxariis badan mar weliba wuxuu inoo sheegayaa habkii aan balaayo kasta uga badbaadi lahayn sidaa oo ay tahayna mar weliba waan caasinnaa wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون wuxuu aayaddan allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegayaa in marka ay dadka dhibaato u timaado oo keliya ay u laabtaan oo ay baryaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuuse aayadda ku yidhi alla weyne waxaa ingegtay quluubtoodii wuxuuna u qurxiyey shayddaan waxay falayeen waxaa dunida ku fidaya musiibooyin waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax inoogu tusaalaynayo waxaa ka mida musiibooyinkaas foolkaanooyinka qarxaya dhulgariirada garaacaya meelo badan oo ka mida caalamka ayaxa hijroonaya ee faraha badan roobabkii di'i jiray sannad kaamil ah oo soo dibdhacayoo yaraaday lagana yaabo inayba da'aan hal maalin oo keliya halka maalin oo ay da'aanna halaagaya oo baabi'inaya wixii ka hor yimaada iyo caabuq caalamka gelgelaya midkaasi oo cabsi geliyey dhammaan dadkii dunida ku noolaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunyadu haddii ay ilaahay agtiisa garab kaniico kale eg tahay gaalba kama kabadeen cantuuga biyo ah waxaa ka mid ahaa akhbaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidyadiisa in haddii qolo uu daacuun ku dhaco oo markaasina ay u sabraan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir ay ka xisaabsadaan iyagoo aaminsan oo rumaysan kuna qanacsan in wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray mooye wax kale aanu ku dhacayn waxay yeeshaan ajirka sida qof shahiida oo kale ummadna lama jaharto oo bannaanka lama timaado faaxishooyinka iyo dunuubta iyo macaasida iyo kabaa'irta ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku aafeeyaa cudurro aan ku dhicin dadkii ka horreeyey ama aabbayaashood iyo kuwii ka horreeyaba aanay garanayn wuxuu yidhi alla weyne fakullan akhadnaa bidanbih فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
dhammaantood waxaan u qabannay dembigooda waxaa ka mida mid aan ku diray dabayl dhagaxya wadata waxaa ka mida miday qabatay qaylo waxaa ka mida midaan la goynay dhulka waxaa ka mida midaan maanshaynay allaahna ma aha kii dulmiya hase yeeshee iyagaa naftooda dulmiyey ma ahan hadda markii ugu horraysay ee kacbada ama xaramka la xidho oo horay ayaa loo xidhay 40 jeer oo waxaa ka mid ahayd markii Ismaaciil ibn Yuusuf al-Calawi uu weerar ku soo qaaday xaramka kadibna uu xujay fara badan ku laayay Carafa halkaasi oo dhiiggu u fatahay sida daadkii oo kale sanadkii 1246 hijriyada 8,000 oo qof ayaa waxay daacun ugu dhimatay bilaadul Xijaas sidoo kale waxaa ka mid ah maalintii qaraamidada oo waxay iska dhigeen dad soo xajiyay waxayna qaadayeen talbiyada labbayk allaahumma labbayk kadibna markay kacbada la soo wareegeen ayay muslimiintii hal mar gaadeen oo hal maalin waxay halkaa ku dileen 30,000 oo xujay ah kadibna kii qaraamidada horboodayay ayaa wuxuu istaagay albaabka kacbada isagoo yidhi limanil mulku alyawm maantayay boqortinimadu iyo boqortooyadu u sugnaatay cidna umaysan jawaabin wuxuu yidhi anigu waxaanahay ilaah dadka anigaa abuura oo dila oo baabi'iya oo nafta ka qaada intaa kadibna waxay dumiyeen ceelkii Zamzam oo waxay ku gureen oo ka buuxiyeen dadkii xujayda ahaa oo ay laayeen ilaa uu ceelkii Zamzam ka buuxsamay kadibna afkiisa kore ayay dhoobeen dadkii kale ee soo haray ilaa ay dadkii la isdul saaray ee meydadka ahaa ay qaraamidadu laayeen ay noqdeen sida buur oo kale haddana waxay fujiyeen albaabkii kacbada intaa kadibna waxay googooyeen oo ay qayb iyo qurub u jarjareen dharkii ku xirnaa kacbada markaas ayaa kii madaxda u ahaa qaraamidadu inta ka dhex istaaga dadkii wuxuu yidhi aaway shimbirihii kooxda ahaa aaway dhagaxdii kulkuleed ee dhoobada ka samaysneed wuxuu ka wadaa mau ilaahay maanta naga difaacdo kacbadiisa anigu waxaanahay ilaah ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu u carooday iyadoo ciidamadiisiina ay ka farxadeen oo ay ka carareen kacbada xilliyo kalena waxaa kacbada ka dhacay caabuqyo iyo fayrusyo fara badan kuwaasi oo laayay dad fara badan oo ka mid ahaa xujaydii u soo xajiday kacbada sharafta badan mar kalena wuxuu garaacay fayruskii la magac baxay ama caabuqii la oran jiray kolera magaalada Madiina iyadoona dad fara badan oo cudurkaasi baabi'iyay sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magangeli jiray cudurrada xunxun isagoo dhihi jiray allaahumma innii acuudu bika min albarasi waljunuuni waljudaami wa min sayyi'i alasqaam allahayow waxaan kaa magangelayaa baraska iyo jirkoo daata waalida iyo junuunka iyo caqligoo taga juudaanka cudurka la yidhaahdo iyo cudurrada xunxun ilaahay subxaanahu wa tacaala walal adiguna mar waliba ka magangal cudurrada xunxun ee caabuqa iyo fayruska iyo dhibaatada miiran ah haddaba dadka waxaa laga doonayaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabtaan inay gacmaha kor u taagtaan inay ooyaan oo isdulleeyaan oo dhulka isdhigaan oo allah isu bihinbihiyaan sidoo kalena allah subxaanahu wa tacaala ay u toobad keenaan oo ay allah subxaanahu wa tacaala xusaan carabkoodana ku carfiyaan sheegsheegidda magaca ilaahay jalla wacalaa si ilaahay dembigeenna u dhaafo si ilaahay dunuubta nooga cafiyo noogu naxariisto noogana badbaadiyo caabuqa iyo fayrusyada iyo balaayada faafaysa oo ah cara ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin waliba kumanaan kun oo munkar iyo faaxisho iyo dunuub iyo macaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala laga gelayo allow maxaa kaa dulqaad badan allow maxaa kaa dulqaad badan allowna cafi oo noo naxariiso nagana badbaadi dhibaatooyinka aamiin وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.